kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel kasta aad joogtaanba halkani waa telefishinka iyo raadiyaha Puntland stuudiyihiisa magaalada London waxaad ku soo dhawaataan toddobaadkii barnaamijkeena dalmar oo aalaaba telefishinka iyo raadiyaha Puntland xaruntiisa magaalada London aan idinkaga soo gudbino barnaamijkeena dalmar ee toddobaadkan waxa aan ku wareysanaynaa Jamaal Xasan Cusmaan oo ah uu dhaqdhaqaaqe danaha dadweynaha ahna musharax u taagan xildhibaanka golaha deegaanka xaafadda lixaad ee magaalada Minneapolis oo ah deegaanka ay ku yaalaan xaafadda Cedar iyo waliba Riverside oo Soomaalidu ay aad ugu badan yihiin ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkaasi Mareykanka Jamaal ayaa dhawaan shaaciyay inuu musharax xilkaasi u taagan yahay doorashadaas oo dhici doonta bisha foodo inagu soo haysa ee August Jamaal marka hore ku soo dhaw telefishinka iyo raadiyaha Puntland stuudiyihiisa magaalada London haddii aan marka ugu horeysaan ku weydiiyo magaalada Minnesota ee ah magaalada aad ku nooshahay waxaa 25kii bishii May ee ina dhaaftay booliska magaaladu ay dil ugu geysteen nin madow ah oo lagu magacaabo George Floyd kaasoo caradii ka dhalatay inta badan caalamka ay saameyn ku yeelatay haddaba muddo dheer oo ay rabshado dhacayeen xaalka magaalada Minnesota waa sidee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبا ما سنتا ولال أدي دمان بوتلاند تي في حالكو ساولا سعوتين أرنتي كدعدي أرنتي فوش حميد وكدعدي مقالة مينيابوليس وبوليسكا مينيابوليس وجيستي وحي أهد حالة أدون كدن قلقشه وويك أب كولو دمان دادكا حرنمدو مرل بقدرره أرنتا أرن عصب معها ساوي وقتهين dalka Mareykanka dadka minority ama dadka madowga dhibaato weyn bay u geystaa khasaan dadka booliiskana waa dadkii aan meesha la geeyay oo safety inay ka shaqeeyaan ahayd laakiin dhibaato aad xun bay geysteen wiilkan aniga meeshan joogo wax yar bay u jirtaa lagu dilay oo sida foosh xun lagu dilay George Floyd magaalada marka hadda xaaladeedan adduunka dhan baa laga daawanayay hadda magaalada sidii hore way ka degan tahay oo xaaladeeda aad bay u degan tahay laakiin waxay noqotay arrin adduunka dhan oo Minneapolis soo eego oo dhibaato soo noqotay ay tahay marka dalka Mareykankana oo gilgishay oo si walbeeto u kicisay dadkii xornimada jeclaa mar walba inay u diraan marka xaaladdu hadda way degan tahay saa waqtihiin bada businessya badan ayaa gubtay khaas ahaan businessya dadka Soomaalida ay degan yihiin ay leeyihiin ayaa la gubay dadkii banaan baxayay ayaa gubay khasaaro badan baa soo gaartay magaalada laakiin waxay noqotay booliiskii in arrintiisa la galo oo dadkii sharciga soo bijiray ama dadkii madaxda ahaa arrintii ay ka fariistaan booliiska saa waqtihiin nimankii dhibka geystay afartiiba waa la xiray maxkamadna way u bilaabanaysaa waxaynu ognahay Jamaal dilkaas waxaa ka dhashay mudaharaadyo gilgilay magaalooyin badan oo Mareykanka iyo magaalooyin badan oo waliba caalamka haday noqon lahayd Europe ilaa iyo Africa waxaana caradii ka dhalatay isu soo baxyadaasi ay sababtay in la tuuro taalooyin ay leeyihiin rag ku lug lahaa ka ganacsigii dadka madow maxaad isleedahay marakan waxba iska bedeli doona xaaladda dadka madow ee Mareykanka iyo waliba sida booliisku uu ula dhaqmo hadda kadib walaal saa ogtahay taariikhda Mareykanka markay noqoto dadka madowga waa taariikh aad iyo aad u fulxun siiba adduun weynaha dhan waa slavery-ga ama dadkii la gumaysan jiray madowgaha saas oo ay tahay dadku way soo direen 400 oo sano ayaa gumays ku soo jireen 100 iyo xoogaagii u dambeeyayna waxay noqotay in ay marwalba xurnimadooda u diraan marka Black Lives Matter groupkii dhahan iyo groupyo badan oo activistayaal ayaa mar walba u taagan dadka madowga ah oo dhibaatada lagu hayo arrintan waxay ila tahay inay noqotay arrin foolxun oo arrinta dadka ay u kacayaan maantana adduunyadu dareemay oo Paris iyo London iyo meel walbeeto laga kacay dilkii foosh xuma oo George Floyd loo geystay dadka minority-ga oo anagu xataa ka mid nahay oo dadka kalarkooda madowga yahay meel walba dhibaato uga soo gaarta Mareykanka maantana waxa waaye sidii hore maaha population ku isbedelaya dadkii way badanayaan dadkii madowga u badnaa waxaana sababay arrimahan dadkii fiidiyoyaal ay duubaan oo dadkii booliiska dhibaatada joogaan arkaan ayagoo xornimadoodii iyo mataqaana dhibaatadii lagu hayay sheegaan
marka anigu waxay ila tahay arrintan arrin dadweynaha kicinaysa tahay wax weyn ka bedeli doonta taas waa midda labaad saa sheegtay taalooyinka la turtuuray waxay ku saabsan yihiin dadka taalada loo dhisay marka horeeto waa dadkii rabay in ay gumaysiga dadka madowgaa sii wadaan marka taaladii ama markaa geshid meelaha dawladdu leedahay sida dhinaca ay dhahaan southka dalka Mareykanka taalooyin waxaa taagan lagu xusayo dadkii gumaysiga dadka ku haystay oo slaveryga ku haystay oo dhibaato dalka xataa Mareykanka la galay Mareykanka civil war-kii dhici jiray taalooyinkii taayol symbol ah oo dadku soo walba kusoo kacan oo fiiriyo qof madow ah ma noqon karto marka dadkii baa kacay cadaankii baa kacay dadkii madowga ahaa baa kacay taalooyinkiina waxay dhimaan gareeyeen inay ridaan saa ula socotiin ba hadda 5 sano 6 sano u dambeysay xataa flag kala jira oo dhinaca southka laga leeyahay asaga laftirkiisa waa la gubaa waa dhulkan la soo dhigaa jaamacadihii laftirkoodii waxaa ka taagan taalooyin oo dad mataqaanaa dad slave haysan jiray ama gumaysi haysan jiray marka dadku way kacayaan wayna istaagayaan xaq bayna u leeyihiin inay istaagaan oo ay dhimaan gareeyaan dalkan haddii la rabo xurnimo lagu noolaado haddii la rabo wanaag lagu noolaado haddii la rabo mataqaanaa dadka madowga xaqooda loo soo celiyo nin symbol ah oo slavery iyo dhibaato soo jiray horteena soo waxba ma taagnaanayo saasaana loo soo riday haddana waxaa dadku rajeynayaan aniguna rajeynayaa wixii symbol ah oo ku saabsan foolxumo oo ku saabsan mataqaanaa slavery oo ku saabsan gumaysi in dhulka la soo dhigo wayna soconaysaa arrintan waana movement insha Allah waxaynu ku dhamaanaysaa dadkeena oo guuleysta dadka madowga khaas ahaan waa tahay Jamal dhawaan waxaad shaacisay inaad u tartamaysid xildhibaan u taagan xaafadda lixaad oo ah xaafadda ay ku yaalaan ama degmada ay ku yaalaan xaafadaha Cedar iyo Riverside oo ku caan ah inay Soomaali badani ay ka degan tahay magaalada Minneapolis ee Minnesota oo ay Soomaalidu aad ugu badan tahay maxaa kugu dhiirigeliyay marka inaad xilka u tartantid aad baa maasantay walaal xilkan waxa igu dhaliyay anigu waxaan ahay nin dhalinyaro ah oo dalkan ku soo koray dalkan wax ka bartay iskuul sare iskuul hoose iyo jaamacad uga soo baxay aniguna dhinacaan ku soo takhasusay waxa waaye shaqada bulshada hadda 15 sano u dambeysay xaafadan ayaan ka shaqaynayay mar walba waxaan u taagnaa shaqada bulshada oo social service ka ay dhahaan arrintan waxa igu dhaliyay shaqadayda ay keentay anigu waxaan ahay nin walba hor taagan oo dadkii xurnimadoodii xuquuqdoodii dhibaatada soo gaarta dhibaatooyin badan baa magaalada ka jira soo gaarta mataqaanaa u istaaga oo mar walba hor istaaga oo mataqaanaa hadduu ama sharci bedelo ha noqoto ama meelaha sharci laga soo bixiyo hor taagan oo ha noqoto mar walba qofkii jecel dadka xaafadda degan especially dadkeena in ay meel gaaraan in ay xaqooda la siiyo in mataqaanaa dadka xataa kaleeto oo aan dadkeena ahayn oo iska danyarta ay dhahaan in mataqaanaa aan dhibaatada soo gaarta mar walba u hor istaaga marka aniga arrintan waxaa igu dhaliyay baahida ka jirta xaafadeena waxaana igu dhaliyay shaqadii oo ku jiraaba oo aan shaqaan hayaba waxaana dareemay in anigu maanta xaafadu ii baahan tahay saas daraadeed baan u soo istaagay maxay yihiin dhibaatooyinka jira oo aad aragtay oo inaad wax ka qaban karaysid aad dareentay oo aad xilkan aad ku raadinaysid oo aad doonaysid inaad xaafadan ku matashid walaal dhibaatooyinka aad iyo aad bay u badan yihiin qaar haddaan kasoo qaato arrinta igu weyn waxa waaye arrinta guryaha waaye xaafadan guri la-aan baa ka jirta ward 6ka haddii aad damacdid sida dadka danyarta guryaha degto haddaad damacdid inaad buuxisatid ama gurigaad degtid 4 sano ilaa 6 sano kugu qaadanaya inaad sugtid waiting listiga kow midda labaad xaafadan dadka degan waa dad guryaha kireysta 80% dadku kirey guryaha ku degan yihiin marka xaafadii guri la-aan baa ka jirta magaaladeena Minneapolis waa magaalo weyn waa magaalo aad iyo aad dhaqaaleedu u badan yahay marka meel guryaha laga dhisaa downtown guryaha laga dhisaa uptown guryaha laga dhisaa xaafadan guri lagama dhiso marka arrinta xaafadan dhibaatada haysta waa guri la-aanta kow midda labaad dadka kan sheegayba dad guryaha kireysta waaye xaqoodii iyo tenantiga sidii loo xushmay lahaa ilaa qof markuu guriga kireysto xushmo ayuu ka mudan yahay qofka ka kireynaya waa lagu xadgudbaa marka dhibaatadaas guryaha waa dhibaato aad iyo aad u weyn aniguna waxaan ballan qaaday
haddaan meeshan ku fariisto in xaafadan magaaladu ay ka tashato magaalada mas-uul ayaa ka saaran xaafadan dad population badan baa degan dad iska danyaraa degan inaan ka bilowno guryo dhiska oo dadka investorska ay dhahaan ama guryaha dhisa aan sa usoo jiida lahayn oo xaafadda guryaha uga bilaabin inay ka dhisaan taas waa kow arrinta labaad saa ula socotiinba magaaladan dhalinyarada soomaalida waa dhalinyaro ku kortay waa dhalinyaro ku dhalatay dhalinyaradan dhibaato weyn baa soo gaartay hadda sanadkii lasoo dhaafay dhowr 20 qof baa ku dhimatay xanuunkan drugska ay dhahaan opioid crisis oo dhalinyaradii kaniin hadday laqaan noloshooda ku waayaan oo waaridkii uu ka walwalsan yahay oo community dhan oo gilgishay oo ka walwalsan yahay aniga laftarkayga dad aan la shaqeeyay oo waxaa jira mataqaanaa andahay ku arkay oo xanuunkaas mar walba aan jeclahay inaan ka hor istaago ama dhibaatada ka hor istaago aan la soo shaqeeyay oo ilaa haddeertaan aan la dadaalayo inay xanuunka ka baxaan marka walaal caruurteena sirigu way dayacday opportunity ayay u baahan tahay shaqay u baahan tahay training center bay u baahan tahay education bay u baahan yihiin dadkii in la qabto oo programmo loo furo dadka ilmaheenii bay u baahan yihiin ma aha in dariiqi lagu sii daayo oo la dhaho cunug waa xun yahay ma aha dalkan dhibaatadiisu waa iska badan tahay ilmaha yarka culture clash baa ku dhacaya oo mataqaanaa nin meeshaan ku dhasho meeshaan ku koray waa haddaan opportunity-ga la hor dhiginin oo la dhihin war waa kan jaamacaddii waa kan iskuulkii waa kan maxaa la dhahaa shaqadii waa kan oo programyo gaar aan loo suubin ilmaheeda dhibaatadan waa ku jiraynaa marka waxaan u baahannahay qof u istaaga kana hadla aniguna waxaan ahay nin dhalinyaro badan la soo shaqeeyey oo xataa dhinaca mental health-ga xanuunka maskaxda training soo siiyey dhalinyarada ama dadka la shaqeeya sida firefighter-ka oo kale police officer-ka oo kale hadday tagaan oo dadkii u wacaan booliisku haddii qof lagu waco qof ama xanuunsan ama qof drugs ma aragtay cabay ama cunay qofkiisa ay ula dhaqmi lahaayeen ilaa qofku ma joogo nafsadiisiina ma aha booliiskii marka waxaan classkayga ku baraa de-escalation waxay dhahaan xaaladda inay dejiyaan say u fiiriyaan ilmihiisa ay u caawiyaan macallimiinta oo kaleeto iskuulka u dhigta laftirkooda waxaan baraa war qofka mental health challenge hadduu jiro bal sidaanaa looga dhaqmaa marka 8-hour course baan soo baraa nin waxaan ahay kusoo jiray mar walbeeto dhalinyarada la dadaalka dhibaatada ka haysata arrinta kale waxa waaye de saan hore uga hadalnay booliiska booliis reform baa u baahannahay booliiskan dhibaato badan ayuu ku hayaa magaalada iska daa dilitaankan iyo dhibaatadan weyn uu mar walbeeto u caddahay dadka inuu soo gaarsan dadka ka shaqeeya booliiska xaafadan ka shaqeeya ma degana xaafado kale ka yimaadaan xaafado kale dadka ajnabiga ama caddaanka u badan yihiin ayay ka yimaadaan boqolkiiba 6 baa degan Minneapolis marka waa arrin lala yaabo anigu hadda marka waxaan arrintaas oo kale wax weyn laga bedelo waa city hall haddaan tago waxa iga ballama dadka xaafadan ka shaqeeya xaafadan degan inay ayagu booliis noqdaan oo xaafadoodii booliiska la haargareeyo oo dad nin kale oo meel kale nooga yimid inaan shaqadii la siinin marka booliis reformka ayay ka mid tahay dhibaatada booliiskana waa dhibaato laga wada fariisan doono haddana waa aragtay meesha waxa ka socda dhibaatadooda maanta dhan hadalkayga haddaan wado wuu sii soconaya marka aad iyo aad reform weyn ayaa u baahannahay dhibaatada booliiska waxaana kaloo u baahannahay dadka especially dadkan east africanka ay dhahaan ama oramada ama soomaalida ama etoobiyaanka in ay dhalinyaradoodii ay trainingka booliiska ayaga dhinacooda loo badiyo ile dadkoodiiba xaafadan u badan taas waa midda issuega kaleeto oo aan jeclahay waxa waaye dhaqaalaha magaalada saan sheegayba Minneapolis dhaqaalaheeda aad iyo aad buu u badan yahay dadku waxay dhahaan Soomaaliya waaba ka dhaqaalo badan tahay magaaladan dhaqaalihii wuxuu u baahan yahay in la qaybsado dhaqaalihii xaafadan dad badan baa degan area badan bay ka tirsan tahay waa 13 degmo Minneapolis dhaqaalaha marka inaa soo jiidana waa dhaqaalaha waxaa lagu soo jiitaa de investment iyo xaafadda lagu suubiyo businessyadii oo mataqaanaa grant la siiyo mall baa hadda ka hadlaynay oo cabdi warsame walaalkii naga horreeyay uu ka hadlayay moolkii laftarkiisii maaragtay arrintaas oo kale in la sii wado oo la dhaho warheedhe bal dhaqaanuhu dadka muxuu u tarayaa midda kaleeto aan jeclahay inaan ka hadlo waxaa waaye dhibaatadii covid-19 soo gaaray dadka shaqadii baa ka luntay shaqooyinkeeda businessadii waa laga xiray saas oo ay tahay oo dadkii oo dhaqaalahoodii hoos u dhacay ayaa waxa u soo dirsamay banaanbixii iyo mataqaanaa meelihii gubanayay oo dadka Soomaalida dhibaato u soo gaartay marka anigu city hall markaan tago arrintan waa in waan gelayaa waxaana fiirinayaa war khasaarada soo gaartay maxay tahay marka hore oo xanuunka adduunka qabsaday ku soo gaarsiiyay midda labaad businessyada gubtay iyo dadka gubtay saa wax loo qaban karnaa saa ugu soo celino ilaa annagii businessyadeenni waa ay dhulkeenni ma joognaa marka walaale waxaan jeclahay inaan ku soo koobo xaafadeena dad badan ayaa degan
ajnabi baa degan east african kala duwan baa degan xaafadii waxay u baahan tahay unity in la isku keeno qof isku keena ayaan ahay anugu qof la soo shaqeeyay qaybtii mataqaanaa ajnabiga qaybtii kaleeto east africanka community-gi haba kala duwanaade la soo shaqeeyay baan ahay oo ay yaqaanaan 15 sano la soo shaqeynayay marka waxaan ahay qofkaas isku keenay xaafadii ma aha Somali issue ma aha inta Soomaalidana bas ma aha in laga hadlo waa dadkeen la isku keeno aniguna marka waxa u jeedaa nin dhinac walba la soo shaqeeyay soo fariistay miisaskii boorarkii xaafadda haddeertaana jecel mataqaanaa booska weyn inuu u tago xaafadii lana dadaalo marka walaalayaashu waa aad bay u badan yihiin laakiin inta aan soo koobay intaas ka mid ah dhibaatada xaafadda ka jirtay Jamal waxaa jira iyaguna Soomaali kale oo sidaada oo kale u tartamaya jagadan xildhibaanka xaafadda lixaad ee magaalada Minneapolis rajo intee leeg baad marka ka qabtaa inaad booskan aad ku guuleysatid aad ku soo baxdid والله ما سنتهاي والله رجع وين بانك قبا ساستان ugu dhawaaqayba waxa ay soo wacday madaxdii already haysay booska ama madaxda magaalada baa soo wacday ilaa soo xiriirtay iguna baraarujisay in arrintan ku sii socdo ay dhaheen boorniyo nin community advocate ahayd oo xaafadda wax badan ka soo shaqeeyay hadda maanta u istaagtay mas'uuliyadda qaadaysidna ma taqaana waa arrin aad u wanaagsan waan ku soo dhaweynaa meel walba email telephone baa laga soo diray oo dadka xaafadda degan oo madaxda ah oo decision ka gaara ama xaafadan ma gaar ahaan Minneapolis oo dhan marka taas arrinta waxa ay sii cadeysay inaan mataqaana booskan aan ku guuleysanayo waxa kale oo raacad dadkii xaafadda degana ayuu laftigooda way aqli badan yihiin waxa waaye dawniyo waxay xaafadda u baahan tahay nin u istaaga lana soo shaqeeyay ma aha qof dhaha waa iska ordaya ma aha qof xaafadii taga oo booski u istaaga oo mataqaanaa xaqooda u soo dhiciya oo wax bartay oo dhalinyaro ah oo mataqaanaa energy-giisuna wanaagsan yahay xaafadiina wax badan la soo qabtay bay u baahan yihiin ayagana taageer weyn ayaan ka helay community walbeeto ama community Oromada ama community Soomaalida community Ethiopianka ama sidaba ajnabiga oo cadaanka kale taa ahaatee mataqaanaa taageer aad u weyn baan ka helay waxaanan haddana momentumkayga aad buu u fiican yahay إن شاء الله وأنا أقول يصدقنا حافظنا متقنا وحي أباهن تهي نندل يرى أو أنا وكلا أو حصاب برتي أو حافظنا آدي آدي ويستاجه خلينا وحصوا قفتي حدنا شقة يدرت جعل المسي وضو ميل وناكسنا وجارسيه وهاجا داوديال كاسرة وحوها جمال حسن عثمان أو ترتبيا حلبان حافظ اللحاد مقالة مينيابوليس oo halka ay ku yaalaan xaafadaha Cedar iyo Riverside oo Soomaali badan ay degan tahay Jamal waxa uu ka qayb galayaa sida la shaaciyay doorashada ka dhacaysa bisha Agosto guud ahaanba wadanka Mareykanka xildhibaanada lagu dooranayo barnaamijkani dalmar ee toddobaadkan ayuu noogu marti ahaa isagoo jooga magaalada Minneapolis anigoo danjiraayo jooga London ayaa wareysigan idin qaadayay intaynu toddobaad kale iyo barnaamijka dalmar dib ugu kulmi doono waa bahda Puntland TV UK oo isku duuban oo idin leh nabadgelyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh